shirkii hogaamiyaasha qaaradda Afrika ayaa waxa uu si rasmi ah uga furmay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia iyadoo Soomaaliya ay dalbanayso in laga qaado cunaqabateynta hubka sidoo faahfaahinta warkaasi inoogu hayo wariyahayaga Cabdicasiis Cabdullaahi Riyaale. Shirkan ayaa waxaa diiradda lagu saari doonaa dhowr arrimood oo ay ka mid yihiin xiisadda ka taagan wadamada qaaradda Afrika gaar ahaan Liibiya, khatarta tahriibka, adoonsiga dhalinyarada iyo socdaalka sharci darrada ah ee lagu tago qaaradda Yurub, musuqmaasuqa iyo arrimo kale. Fadhiga shirkan waa kii soddonaad waxaana ka qayb galay hogaamiyaal sare oo ay ka mid yihiin xogayaha guud ee qaramada midoobay, xogayaha guud ee jaamacadda carabta iyo kuwo kale, iyadoo arrimaha kale ee muhiimka ah ee looga hadli doono ay qayb ka tahay la dagaalanka argagixisada. Labada maalmood ee shirka uu socon doono ayaa sidoo kale waxaa laga akhrin doonaa warqad qoraal ah uu hogaamiyaasha qaaradda Afrika u soo diray madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump, taasi oo xushmad ugu muujinayo hogaamiyaasha maadaama hadal Trump dhawaan uu sheegay qaar ka mid ah hogaamiyaashu ay dhibsadeen. Warqadda madaxweynaha Mareykanka ayaa sidoo kale lagu xusay in xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka uu booqasho ku tagi doono qaar ka mid ah wadamada qaaradda Afrika si loo sii adkeeyo xiriirka ganacsi ee ka dhaxeeya Mareykanka iyo Afrika. Hogaamiyaasha qaaradda Afrika ayaa horay uga carooday hadal aflagaado ay u qaateen madaxweynaha Mareykanka kaasi uu ku sifeeyay qaaradda Afrika, waxaana ay sababtay in qaar ka mid ah wadamadaasi ay Mareykanka dib uga soo celiyaan safiiradoodii. Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka mid ah hogaamiyaasha qaaradda Afrika ee ka qayb galaya shirka ayaa waxa uu diiradda saari doonaa ka hadalka arrimo muhiim ah oo ay qayb ka tahay ka qaadista cunaqabateynta hubka Soomaaliya, maalgelinta ciidamada Soomaaliya si ay u bedelaan kuwa midowga Afrika ee hadda Soomaaliya ku sugan. Midowga Afrika iyo Mareykanka ayaa ka walaacsan bixitaanka ciidamada nabad ilaalinta ee Soomaaliya haddii aan la helin ciidamo awood leh oo Soomaaliya kuwaasi bedela. Wakiilka midowga Afrika Soomaaliya ayaa sheegay in kunkii ugu horeeyay la qaaday ciidamada Afrika 2017 kunka xigana la qaadi doono sanada 2018. Shirka hogaamiyaasha qaaradda Afrika oo soconaya muddo 2 maalmood ah ayaa gabagabada waxaa laga soo saari doonaa war murtiyeed madaxdu ay ku midaysan yihiin. Cabdicasiis Cabdullaahi Maxamed, Cabdicasiis Somali Cable.